ninkani wuxuu had iyo jeer si sax ah dhalada ugu ridi karayay qashin qubka. Markii uu arkay arrintan, boqorkii kubadda cagta wuxuu u maleeyay inuu leeyahay hibo aan caadi ahayn. Laakiin aabihiis oo ahaa nadaafad leh ayaa u soo orday oo garaacay. Wuxuu xitaa yiri ninkani wuxuu kaliya u qalmaa inuu qashinka ka ururiyo noloshiisa. Kubad ayaa u soo girin giratay dhinaca ninka. Ninkii markiiba wuxuu gartay inay tahay kubaddii rasmiga ahayd ee koobka adduunka. Wuu is-celin kari waayay wuuna laaday kubaddii. Qaanso qurux badan ayaa ka dulmartay madaxyadii qof walba. Qof kasta wuu naxay markii kubaddu ay gashay goolka. Boqorkii kubadda cagta aad ayuu ula dhacay hibadiisa. Waqtigaas caawiyihii ayaa dareemay in ninku uu aad ugu eg yahay boqorkii yaraa ee kubadda cagta. Markii aabbaha ninku uu maqlay arrintan, wuu argagaxay. Wuxuuna si degdeg ah ninkii uga kaxeeyay garoonka. Laakiin boqorkii kubadda cagta ma uusan ogeyn in ninkaas uu ahaa wiilkiisa. 18 sano ka hor, si uu wiilkiisa ugu suurtageliyo inuu ku noolaado nolol maalqabeennimo, nadaafadluhu wuxuu si qarsoodi ah wiilkiisa ugu bedelay wiilka boqorka kubadda cagta. Si kastaba ha ahaatee, sanadihii la soo dhaafay, boqorka kubadda cagta wuxuu had iyo jeer doonayay inuu wiilkiisa u tababaro inuu noqdo boqorka xiga ee kubadda cagta. Laakiin boqorkii kubadda cagta wuxuu ogaaday in wiilkiisu uusan lahayn hibo kubadda cagta ah haba yaraatee. Markii ninkii guriga yimid, aabihiis aad ayuu uga carooday dhaqankiisii garoonka dhexdiisa. Wuxuu soo qaatay suun wuxuuna rabay inuu garaaco. Markii ay aragtay tan, walaashiis aad ayay uga naxday walaalkeed. Waxay jidhkeeda u adeegsatay inay ilaaliso walaalkeed. Aabbuhu wuxuu uga digay inuusan mar dambe taaban kubadda cagta. Dabadeed aabbihii si caro leh ayuu uga tegay. Waqtigaas, si ay u dejiso walaalkeed, waxay isticmaashay dhammaan lacagtii ay haysatay si ay ugu soo iibiso kubad duug ah. Markii ninkii uu arkay balastaradii kubadda ku yaalay, wuxuu qalbigiisa ku dhaartay inuu walaashiis ka dhigi doono mid ku noolaata nolol maalqabeennimo. Intaas kadib, ninkii wuxuu si adag ugu tababartay garoonka kubadda cagta isagoo isticmaalaya kubaddan. Mar kasta oo uu laado kubadda, waxay ku dhacaysay bartilmaameedka. Wiilka boqorka kubadda cagta ayaa isna ku tababaranayay garoonkan. Tani waxay ka dhigtay inuu u maleeyo in xirfadihiisa ay aad u wanaagsan yihiin. Sidaas darteed, si kibir leh ayuu kubaddii u laaday, laakiin kubaddii waxay ku dhacday walaashii ninka. Ninkii si degdeg ah ayuu u caawiyey walaashiis, wuxuuna ka codsaday wiilka boqorka kubadda cagta inuu raaligelin bixiyo. Laakiin wiilka boqorka kubadda cagta ma uusan raaligelin, wuxuuna ka codsaday ninka inuu jilba joogsado oo kubadda u soo celiyo. Ninkii si caro leh ayuu kubaddii meel isaga tuuray, wuxuuna si toos ah goolka u geliyey. Qof kasta wuu naxay. Dadweynihii waxay dalbadeen in ninka uu garoonka ku ciyaaro. Markii ninku garoonka galay, wuxuu si fudud u dhaafay difaacyadii, wuxuuna laaday kubaddii si xoog leh. Qof ayaa gartay in dhaqdhaqaaqii uu isticmaalayay uu ahaa kan saxiixa ah ee boqorka kubadda cagta. Caawiyihii ayaa muuqaalka u diray boqorka. Markaas ayuu boqorkii garowsaday in ninkaas uu yahay wiilkiisa, wuxuuna amray qof walba inuu aado garoonka.